waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku dhawaaqday xukunka dable booliis maxamed cabdi jaamac joof oo 22 Juun ee sanadkan ku dilay degmada Xamar Jajab qof shacab ahaa iyadoona dilka marxuumka uu yimid kadib markii muran uu soo kala dhaxgalay askariga iyo marxuumka dhintay dilka oo ka dhacay agaarka ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxa ay sheegtay in si bareer ah loo dilay una doonaya askariga inuu dhac u geysto marxuumka dhinaca kale waxa maxkamadda ku sugnaa xilligii ay dacwadu socotay ehelada marxuumka oo cadaalad sugayaal ahaa iyo ehelada askarigii dilka geystay maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle dhexe xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka askariga dilka geystay dable booliis maxamed cabdi jaamac waxaana lagu xukumay dil toogasho ugu dambeyntii dilalka caynkan la midka ah ayaa ka dhaca mararka qaar magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka iyadoona ay baxsadaan askarta dilka geysatay halka qaarkoodna gacanta lagu soo dhigo Cabdisalaam Wardheere VOS TV Muqdisho.